السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتي قاني سودو هذا ولا الكدار يوسف. maanta mowduucan wuxuu ku saabsan yahay jiimka ka hor jiimka intaan la soo aadin ka hor cuntooyinka la isticmaalo oo fudud. maanta mowduucan intaas ku saabsan yahay waxaa ka codsanadayda markii ugu horeysay oo janaalkeena soo booqanaysa inaad subscribe noo saartid, sidoo kale facebookgeena pagekiisa inaad nagala socotid si casharada jiimka iyo wax walba jiim ku saabsan aa uga faa'iidid. haddaan maanta mowduucan gudaha u galo jiimka ka hor cuntooyinka fudud oo jiimka loo isticmaalo. dad badan waxaa jira 3 waqti jiimka sida subaxii iyo galabtii iyo habeenkii soo galo, qofba waqti uu qaadaa birta. dadka subaxii da ku hormaro dhalinyar badan waxaa jirta subaxii birta qaado. qofka marka hadduu subaxii cunto u qaadan karin, dad badan waxaa jiro 12 ka hor ama 2 saac ka hor aan cunto cuni karin. marka dadkaasna dad qaar oo saas waxaa jira marka subaxii birta qaadayo. qof marka asigoo baahan birta qaaday dib ma kala kulmaa, sidoo kale cunto la-aan birta ma la qaadi karaa. sidaa wad ogtiin qofka markuu birta qaada energy u baahan yahay, energygaas ka saacida inay birta u fududaato. marka haddaa ogtahay inaan subaxii cunto qaadan karin oo kulli laboonaysid ama kuma tegay, sidoo kale birta waxaa laga dhigtaa galabtii. haddaanan ka maarmin laakiin oo subaxiina inaa qaadid aa rabtid cuntadii inay kugu soconin, waxaa sameynaya cuntooyin fududaa jiro sida timirtoo kale, timir iyo moos inaad soo cuntid. haddaa cunto kale awood u lahayn waadan qaadan karin, waxaa sameynaya marka waxaa soo isticmaalaya moos iyo timir, 3 xabo timir iyo 3 xabo moos camal. laakiin sida hurdada u soo kacay inaad jiim ku qaadid waxaa dhib badana kala kulmaya, inay birta kugu dhacdo, inaad tabardarga dareentid, inaad qufac saaid ku dareentid. waxaa keenaya marka adoo wax energy usoo isticmaalo birta. dadka galabta kusoo haray, dad galabta waxaa jiro dadka markay soo qadeeyaan oo kale jiimka imaadaan, marka qadeeda ma iga filan inaad jiim ku qaado mise cunto kale oo isticmaalaa. taas waa midaas ku haysto. dhalinyarada badan waxay sameeyaan oo kale markay soo qadeeyaan oo kale qadeedii wax laga yaabaa inay birta ku qaadaan mise wax kale soo isticmaalaan. marka dhalinyaradaas waxaa kula tali lahay markaa qadeed soo isticmaashid oo kale inaa xabad ukun ama 2 xabo ukun heli kartid inaad kusoo darsatid, iyo cabitaanada fudud sida mooska iyo timirta iyo waxyaabaha kale oo la isku dardaray sida mushakalka iyo dhalinyaradu yaqaanaan oo kale. moos iyo timir iyo caano boore oo kale isku darsanayna iyo 2 xabo ukunta adoo soo isticmaalay inaad jiimka imaatida fiican si energy uga heshid. habeenkii dadka imaano sidaas oo kale inay ukuntaas inay jiimka ku qaado, sababtoo ah mar walba cuntadaada sii badato ukun 2 xabo 3 xabo 4 xabo mar walba ukuntaada sii badato ama energyga jiimka soo isticmaalaysa mar walba sii bataan, waxaa awood u yeelanaya inaa miisaan culus qaadid. haddaa aragtid in miisaanka birta ku dari laadahay ama 15 kiilo ama 20 kiilo alaa filaad, waxaa keenayo cuntadaada oo jiimka soo isticmaalaysid oo jiimka intaad imaan ka hor kaa saxneen. marka macalinka jiimka dib ugu laabo. laakiin haddaad ogtahay inaad shaqeynin jiimkan inaad cunto usoo cunto aa rabtid, ukunta iyo moos oo kale oo soo isticmaali kartaa. haddaa ka badan helaysina waa kusii anfaceyo. marka asxaabteyda soo dhawaada, mowduucina maanta intaas ku yahay. wax alla wixii fikrada iyo wixii tale ay weydiisiin waxaa diyaar waa inaan kasoo hadlo. waxaa kaa codsanaya ilaa dhamaadka haddaa ila soo socotay oo fiidiyowga ila dhamaysatay si soomaalinimo iyo walaaltinimo. waxaa kaaga codsanaya inaad subscribe janaalka noo saartid, sidoo kale pagekeena facebook soo booqatid si aad talooyinka jiimka iyo casharada jiimka uga faa'iidaysatid. waana mahadsantihiin asxaabteyda.